barnaamijkan oo ahay mid lagu taageerayay geedi socodka nabadda iyo dhismaha Galmudug ayaa ka dhacay magaalada Dhuusmareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Kumanaankan qof ayaa isugu soo baxay rabitaanka inay helaan maamul loo dhan yahay isla markaana nabad buuxda ay ku naaloodaan. Waxgarad dhalinyaro iyo gudoomiyaha degmada Dhuusmareeb ayaa si isku mid ah u sheegay inay dhamaantood soo dhaweynayaan isla markaana taageerayaan dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ee ka wada dhismaha Galmudug. xafladan aadka iyo aadka u quruxda badan ee aan ku soo dhaweynayno maanta ama aan ku taageerayno midnimada iyo isku dubaridka iyo danta caamka iyo khaaska intaba isku daran maanta laga daadihinayo Dhuusmareeb siqaas iyo oo badan waxaan u salaam tahniyada aan ugu diraynaa dowladda federaalka ee uu hogaaminayay mudane xasan cali khayre iyo waftiyaashiisii dhammaan waxaan kaloon u tahniyadaynaynaa ayagana oo aan soo dhawaynaynaa oo aan aqbalsannahay midnimada. waxaan u mahadcelinayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo noo fududeeyay in ay ka dhacdo caasimadda Dhuusmareeb dibishiinta dowladda Galmudug. mahad gooniya siinayna sidoo kale waxaan siinaynaa maamulka Galmudug oo asna ogolaaday raalli ka diyaarna u ah in ay martigeliyaan soo dhaweeyaan cid walba ay timaado caasimadda Dhuusmareeb. waana maasantiin haddaan nahay dhalinyarada magaalada waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta ee ka qayb qaadanaysa gooshaas taala magaalada Dhuusmareeb dadkii haday ahaa lahaayeen dadka reer Galmudug ee isugu imaaday sidii ay maamul mid u dhisa lahaayeen. waxaan u mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo dadaal ka wada deegaanka in badan meel guulana ay marayaan. Dhuusmareeb oo annagoo iskaashanayna dhammaanteen maanta waxaan noo martay qarankii Soomaaliyeed dhammaan deegaanadii Galmudug oo dhan soo dhawaada. waxaan u diyaar garoobaynaa soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha ee madaxda federaalka noo imaan doonta. waxaan u diyaar garoobaynaa soo dhaweynta shirka dib u heshiisiinta oo furmaya. waxaan soo dhaweynaynaa una xalfaday doonaa ciidamada amisom maanta na soo gaaray insha Allah ta'ala. waqti waa soo qabinaa dibaan soo imaan doonaa. waxaan rabaa dhalinyarta maanta halkan jooga inaan ku farax geliyo. halkan waa meeshii ku ciyaari lahaayeen. waxaa u diyaarsan lacagtii loogu dhisi lahaay oo u soo diyaariyay ra'iisul wasaare xasan cali khayre. xaaladda mahad ka gaarto xaflad ayaan u qaban doonaa mar dhowna waan bilaabi doonaa. waxaan kala rabnaa ra'iisul wasaaruhu waa soo laabanaya insha Allah soo laabadkiisana sidaan u soo dhaweyn jirnay iyo si ka ballaaran ayaan u soo dhaweynaynaa. hawlaha socdana waxay noqon doonaa mid Galmudug hoggaan rasmi ah loogu dhiso insha Allah. maxamed macalin axmed maxamed qadar warbaahinta goobjoog Dhuusmareeb.